farmaajo maxaa ku haysataa cabdiraxmaan cabshukuurow ninkan human rights violation aan ku haystaa dastuurka ma taqaano ma iska soo akhris dastuurka waa ku takhasusay waana aqaanaa waana iska soo akhriyey cabdiqaadir cusuble fadlan jooji taleefanka inta dacwaddu socoto aawo islow cabdiraxmaan cabshukuur iyo farmaajo arrintooda diyaar ma u tahay inaa warbixin naga siiso iga jawaabto dhowr maray soo noqnoqotay laakiin waxaan jeclahay in si waafi kaaga jawaabo arrintaasi this you conscious this you damiirkaaga laakiin cabdiraxmaan cabshukuur tagaa la yidhahdaa fadlan cabdiraxmaan cabshukuur mawduucaha ka bixin oo isdeji waxaan ku xasuusinayaa hadal ah hore u tiri waxaan rabaa qof kasta oo dhib ii geystay hadduu yahay mid gacan ah ama hadduu yahay mid af ah ama hadduu yahay mid qalbi ah intaba inaan iska cafiyo idinkan aan cafis in weydiisto mudanayaasha waxaan ka codsanayaa hurdada iyo halaaqada in la joojiyo inta dacwaddu socoto dacwadaada waa bilaabo kartaa waxaad ogtahay mudane guddoomiyey 17 Diseembar 2017 in xarunta xisbiga aan aniga hogaaminayo wadajir saqda dhexe weer lagu soo qaaday oo lagu dilay 5 wiil oo Soomaaliyeed oo ciidanka ilaalinaya ka mid ahaa meydkoodiina kabaha lagu aasay amarkaasna oo ka soo baxay maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta u fadhiya in loo dhaariyo xildhibaannimo ilaa maalinta dhibkaas uu dhacay oo wiilashaas kabaha lagu aasay ka bacdi dalka waxaa ka dhacay dhibab kaloo fara badan fadlan mawduucaha ka bixin cabdiraxmaan cabshukuur taada kaliya ka hadal ra'yigeena aan ku ixtiraamo taada ka hadal cabdiraxmaan ama oo dhaqankii xeerkii Soomaali soo maray lagu yaqaanay oo ii soo hoydaa dhibaato ii geystay ama inkii sharciga laga wafiyaa doodeen intaas aawo islow wiilasha la laayay dadkooda ma lala xaajood waxa la fadhiistay ehelkooda iyo qaraabadooda oo markaas dawladda Soomaaliya la fadhiisatay waa la xaajooday marka la xaajooday wixii lagu heshiiyay oo ahayd duugti iyo diidabo waa la baxshay wix lagu balaman waa la sii raari arrintan cabdiraxmaan cabshukuur muxuu ka dhaxarkay arrintaas wuxuu ka dhax arkay macaash siyaasi ah qofkii ka baqaatay kacay qofka ka maqaatay kacay buu haraysaa rikoor waay waxaan ku hadlayno maxaa rabtaa waayahay cabdulow xarunta marwe waa albaabka farxadda lamaanaha fadhi ma yaal heetii alla waa gaar dadaalna waa mahuraane xarunta marwe waxa aad ka helaysaa daweyn baaritaan iyo aqoon la isku haleyn karo dhaqaatiirtuna waa Soomaali kaana tageen oo mar walba kula jooga dalka dadkayga yaaba wax bartay ajnabi xaan ka jira si aad u hesho ubadkii aad u baahnayd insha Allah hadda la xiriir Marwe Fertility Center oo ku taala degmada fooda rikoor aan rabaa inuu ku hadda xukunka qabsaday ay falku sameeyo kala sameeyeen oo qof idinka ilmada ay gurigiisa u dhicin cabdiraxmaan cabshukuur waqtigii waa ka dhamaaday hadalkaaga ugu dambeeya maxaa leedahay this you conscious this you damiirkaaga laakiin cabdiraxmaan cabshukuur tagaa la yidhahdaa waxaa la hadlayo waa xaq waxaa rikoor gareynayo waa xaq waxaa sad gareynayo waa rikoor oo mid xukun haysta hadda mid soo maray mid imaan doonaba inuu si bacad gudbinaa rabo aniga maxkamaddu maanta intaasay noogu xiran tahay waxaan u gudbaynaa wejiga labaad ee dacwadda iyo dooda farmaajo iyo cabdiraxmaan cabshukuur maxkamadda cadaaladda social media waxa ay doonaysaa dagaalka farmaajo iyo cabdiraxmaan cabshukuur inay soo afjarto oo social media ay ku heshiishiso ayna soo bandhigto cabdiraxmaan cabshukuur iyo farmaajo heshiisa isku duceynaya iscafiyey wejiga labaad ayna ku soo bandhigi doontaa Soomaaliya beledi kuna aragtiina commentiga nagula wadaaga muuqaalkaana sii sheer garay oo la garay si uu gaaro shacab badan ay qof ku nool qaaradaha Ameerika iyo Yurub ma ku dhiban tahay faylalka dhaadheer ee xawaaladaha haddaba intaas oo dhan waxa ka xaqabtiraya application-ka Payc oo ah adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag u dirto family-gaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga goobtaada shaqada